Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawadaha qiimaha badanow. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida Canva looga samaysto akoon. Waa koorsi aan ku baranay Canva. Canva waxaa ku samaysanaysaa dhisayno mucjisa oo lala yaabay. Haddii aadan aqoon u lahayn si loo samaysto desaynka ama aad aqoon u lahayn Photoshop waxyaalaha la halmaala, waxaad samaysan kartaa markaa koorsaan dhamaysato awoodna u yeelan doontaa in aad samaysato dhisayno qurux badan oo lagu sameeyo Photoshop iyo meel walbaba. Haddaba sidaa darteed ayaan koorsadaani waxaan ku baran doonaa wax walba ku tacalluqa Canva. haddii ay markii ugu horeyso soo boqol daawadaha qiimaha badan ka mid ah khiyaarta qaaliga ah ku xiran halkan adigoo saaranaya hal subscribe ka bacdina furnaanka baralka soo noqoto daawadaha ugu horeeya ama aad noqoto ka sheekeeyaha aan looga sheekeyn. Koorsadaani waa ku muhiim qof kasta ama ahow YouTuber ama ha ahaanin koorsadan waa ku muhiim. Marka koorsadan dhamaysato waxaad samayn doontaa waxyaabo dadka la yaabaan. Haddaba la soco koorsadan ee dhamaadkeeda. haddaba daawadaha qiimaha badan waxaan soo gelinaa Chrome-ka ama hadda meesha ka isticmaasho internetka. daawadaha qiimaha badan marka aad soo gasho qaybta wax laga baaro ee aad ku qoraysaa canva.com waa inta ku muuqatay. ka inta qodho waxaad leedahay enter ama waxaad leedahay search waad baaraysaa. daawadaha qiimaha badan marka aad ku qodho canva.com waxa ku soo baxaya sidaan: what will you design today? waxa ugu horeeya ee Canva waa sidaan. waxa awood u leedahay adigoo samaysan akoon inaad isticmaasho, laakiin akoonka wuxuu ka saacidayaa haddii Canva wax ku samaysato hal meel baa lagu aruurinayaa oo mar walba waxaad awood u leedahay wixii aad samaysatay inaad dib ugu laabato kale. tusaale ahaan oo kale waxaad dhisanaysay waxaad hagaajinaysay markii waxa dhamaysay oo si dhameystirtay ay raacday ayaad khalad samaysay ka bacdina waa ka baxdaa. haddii aad akoon ku lahayn hadhow heli maysid waxaas, laakiin haddii akoon ku leedahay hadhow awood waxa u yeelan doontaa inaad dib ugu laabato ka bacdina meesheedii aad ka sii bilowdaba. haddaba muuqaalkeena wuxuu quseeyaa kaliya sida akoon looga samaysto Canva. waxaan ku dhufanaynaa meesha ku qoran tahay sign up. daawadaha qiimaha badan waxa ku soo baxaysa meeshaan log in ama log in ama sign up. waxay ku kala duwan yihiin log in sign up. waxay ku kala duwan yihiin log in waa markii aad hore ugu jirtay akoon ku lahayd ayaa waxa leedahay ka bacdina waxa leedahay continue haddii uu ku samaysan yahay weeye, ama waxaad leedahay sign up baa leedahay waa samaysanaysaa. marka midka aad doonto waxaad ku geli kartaa Google ama waxaad ku geli kartaa Facebook ama waxaad leedahay emailka aad Google ama wuxuu ku leeyahay continue ama wax ka sii fara badan ayaa ku soo geli kartaa. hadday noqoto Apple-kii, Google-kii, Facebook-kii, Microsoft ka baahan tahay midkan kale la yiraahdo Clever la yiraahdo ama waxa isticmaal ka daa email-kaaga way fara badan yihiin, laakiin waxa isticmaalaya Google-ka. qof kastana uu leeyahay Gmail. marka isaga ayaan naga badan ayaan klik siinayna. markuu san ku soo baxo ayuu wuxuu ku leeyahay ma akoon-kana ku isticmaalaysaa mise waxaad isticmaalaysaa use. wuxuu ku leeyahay another account isticmaal akoon kale ama kan marka akoon kana isticmaalayaa qoran tahay nabad galiyo. wuxuu ku keenayaa halkan oo ku wareejinayaa ka bacdina wuxuu ku dul geyn doonaa shaashadii weyneed ee Canva. daawadaha qiimaha badan taas ugu soo baxaysaa wajiga ugu horeeya ee Canva. inta ku mudan muuqaalka mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo.